wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka xog waran news qodobada ku daawad doontaan waxa kamida khilaaf xoog leh oo ka taagan soo xulada xildhibaanada gobolada waqooyi ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya awaamiir lagu soo rogay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya qaybta koonfur galbeed ayaa ku habsaday beero ku yaala gobolka Boqol Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo gaaray magaalada madaxda maamulka Hirshabeelle iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya safarka Shariif Soomaaliland oo shuruud adag ku xirtay la shaqaynta jimciyada qurumaha ka dhaxaysa dib u dhac mar kale ku yimid jadwalkii doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada caalamkana waxa kamida xujayada cumraysanaya oo loo fasaxay dhulka barakeysan ee boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Barack Obama oo ololihii ugu dambeeyay ku jira fadlan hadii aad ku cusub tahay subscribe sar channelkeena si aad u daawato wararka muhiimka ah ee aan halkan soo dhigno daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo soo saaray waxa uu ku sheegay in habraaca doorashooyinka kuraasta xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada waqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland loo raaco habraaci loo raacay sanadkii 2016 qoraalkan oo la ogeysay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa marka hore looga mahadceliyay xubnaha kor lagu soo xusay dadaalka ay u galeen in doorasho ay ka dhacdo dalka Soomaaliya qoraalka gudoomiyaha aqalka sare oo laba bog ka koobana ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in heshiiskii doorashada uu kamid ahaa in guddiga doorashada maamulaya kuraasta gobolada waqooyi ay maamulayso dawladda dhexe waxaana arrintan uu ku tilmaamay gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi mid wax u dhimaysa hanaanka doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya isla markaana iyagu markaas ay magacaabi doonaan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee ka imaanaya gudoomiye Cabdi Haashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in isku haynta ummadda Soomaaliyeed in midnimada ay tahay wax weyn isla markaana loo baahan yahay madaxda qaranka in tanaasul ay la yimaadaan ciidamada dawladda federaalka ah ee jooga deegaanada koonfur galbeed si gaar ah qaybta 6aad shir jaraa'id oo ay si wada jir ah magaalada Baydhabo ugu qabteen taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha qaybta booliska gobolka Bay iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ayaa waxay ku sheegeen in loo baahan yahay ciidamada qalabka sida ee jooga deegaanada koonfur galbeed inay u hoggaansamaan awaamirta ka soo baxaysa madaxda dawladda iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa looga baaqay inay ka fogaadaan falalka gurracan ee marmarka qaar ay ku kacaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si gaar ah kuwa jooga deegaanada koonfur galbeed gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ayaa waxa uu sheegay in askarigii ka amar qaadan waayay taliyihiisa isla markaana falal amniga lid ku ah ama gurracan ku kaca talaabo ay maxkamaddu ka qaadi doonto taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaan la dhexe Amiin Mahad Nuur iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 6aad gaashaan la sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa dhamaantood waxa ay farin adag u direen ciidamada qalabka sida magaalada Baydhabo ee caasimada maamulka koonfur galbeed ayaa dhawaan la qorsheynayaa inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada ka soo jeeda ama laga soo dooranayo deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana hadda ciidamada qalabka sida ay muujinayaan dadaal dheeri ah oo loo galayo sidii amniga loo sugi lahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicaziz Maxamed Laftagaran ayaa dhawaantan waxa uu sheegay inuu farayo ciidamada qalabka sida in amniga dalka ay si wacan u sugaan magaalada Baydhabo oo kamid ah meelaha la qorsheynayo in ay doorashada ka dhacdo ayaa hadda laga dareemayaa isbedel aad u xoog badan oo dhinaca amniga ah ayaa aad u fara badan ayaa ku habsaday deegaano badan oo ku yaala koonfur galbeed si gaar ah gobolka Boqol dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda ayaa durba walwal ka muujinaya dawladda Soomaaliya ayayna weydiisanayaan sidii ay xas loo ciribtira lahaa maadaama beerihii iyo dhul daaqsimeedkii intuba uu xaalufinayo beeraleyda ayaa waxa ay sheegeen in ayaxan maalmihii ugu dambeeyay laga soo sheegay gobolka Hiiraan laakiin hadda lagu arkay qaybo kamid ah gobolka Boqol iyaga oo durba muujiyay walwal ku saabsan dalagyada beeraha iyo sidoo kale dhul daaqsimeedka uu ayaxaasi uu xaalufin doono madaxda joogta gobolka Boqol ayaa waxa ay sheegayaan in ayaxani uu yahay mid aad u fara badan isla markaana dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay intaba ay ka codsanayaan kaalmo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa ayaxan tan bishii 8aad ee sanadkan waxa meelo badan oo ka tirsan dhulka Soomaaliya ku habsaday ayax la sheegay in markii hore uu ka yimid wadanka Yemen deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Boqol hadda waxa si weyn looga walacsan yahay ayax la sheegayo in hadda meelo badan oo ka tirsan gobolkaasi uu ku habsaday dadka beeraleyda ah iyo xoololeyda ayaa durba muujinaya walwal aad u xoog badan oo ku saabsan ayaxa gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale isaguna waxa uu kamid yahay meelaha sida weyn markaasi ayaxan looga soo sheegayo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ah gudoomiyaha madaxa xisbiyada qaran ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle madaxweyne Sheekh Shariif ayaa waxa uu sheegay in halkaasi uu tagay in markaasi uu xalliyo khilaaf ka jira deegaanada maamulka Hirshabeelle
wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha ayaa markii ay ka soo degeen gegada garoonka diyaaradaha magaalada jowhar waxaa si weyn halkaasi ugu soo dhoweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana la qorshaynayaa in madaxweyne sheekh shariif uu la kulmo madaxda ugu sarraysa ee maamulka hirshabelle oo hadda uun yeelatay baarlamaankii labaad ayaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxa uu noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee booqda magaalada jowhar isagoo oo sheegay in ay muhiim tahay wadajirka ummadda amniga magaalada jowhar ayaana maanta si weyn loo adkeeyey waxaa kaloo la dareemayaa guud ahaan magaalada laga dareemayaa safarka uu ku tegay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo odayaasha dhaqanka iyo dadka waxgaradka ahna uu sheegay madaxweynihii hore ee soomaaliya inuu kulan la qaadan doono si hirshabelle loo samata bixiyo waxaa xusid mudan in magaalada jowhar ay tahay magaaladii uu siyaasadda ka soo ambaqaaday madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ku eedeeyey in ay ka amar qaadato dowladda soomaaliya islamarkaana ay ku leedahay siyaasadda gobolka biixi ayaa waxa uu sheegay in wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u jooga soomaaliya ee james iswan uusan matelin somalilan waxaana dowladda soomaaliya iyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hadda ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka ku soo aadan soomaaliya somalilan oo ilaa iyo hadda aanay aqoonsi helin ayaa waxaa sheegtay in soomaaliya inteeda kale ay ka go'day waxa uu dib u dhac ku yimid nidaamka doorashooyinka qaranka ee la qorshaynayay in la soo xulo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee soomaaliya labada gole heshiiskii dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay galeen ayaa waxaa ka mid ahaa in 1 bisha November ay bilaabato xulista xildhibaanada iyo ergooyinka sanadka 2020 kadib markii aanay weli magacaabin guddiga doorashada xilligii looga talagalay dowladda dhexe sida oo kaleeto maanta ayaa waxaa qorshuhu u ahaa soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo goobaha codbixinta lagu diyaarinayo waa 1 November waxaad moodaa taasi hadda inaanay suurto gelin weli dhinac ka tirsan labada dhinac waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada midna kama aanay hadlin doorashada aqalka sare ayaa dhici doonta 1 ilaa iyo 10 bisha December halka mid xildhibaanada golaha shacabkan ay dhici doonto 10 ilaa iyo 27 bisha December ee sanadkan sida qorshuhu ahaa doorashooyinka guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyana dhici doona 1 January ilaa iyo 8 February sanadka 2020 madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Barack Obama ayaa hadda muujinaya ololaha doorashada oo si weyn ugu taageerayo murashaxa ay isku xisbiga yihiin Joe Biden madaxweyne Obama ayaa waxa uu hadda tilmaamayaa in uu markaasi si weyn u aaminsan yahay in Joe Biden uu noqon doono madaxweyne fiican isla markaana samata bixin kara wadanka Mareykanka tan markii doorashada ama ololaha doorashada wadanka Mareykanka ay bilaabatay markii ugu horeysay ayaa la arkay madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Barack Obama iyo Joe Biden oo labadooda isbarbar taagan madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in shacabka Mareykanka hadda ay u baahan yihiin hogaamiye samata bixiye isagoo oo sidoo kale weerar afka ku qaaday madaxweynaha hadda talada haaye Donald Trump xukuumadda Riyadh ayaa waxaa sheegaysa in 10,000 oo qof ay u ogolaanayso in markaasi ay cumriyeystaan oo ay yimaadaan ka barakeysan ee boqortooyada Sacuudi Carabiya wasaaradda arrimaha hajka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya mas'uuliyiin u hadashay ayaa waxa ay sheegeen in markaasi dad badan oo muslimiin ay u ogolaan doonaan inay imaadaan boqortooyada Sacuudi Carabiya isla markaasna ay soo cimraystaan kadib muddo 7 bilood ah oo xayiraadi jirtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xajka iyo cumrada Al-Maddah ayaa waxa uu sheegay in dadka cumraysanaya ay marka hore la doonayo in muddo 3 cisho ah karantiin la geliyo intaas kadibna loo fasixi doono inay cumraystaan warkii aad ka daawanaysan Xawaran News ayaa inta ku dhan fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar si wax walba aan soo dhigno halkan aad ula socoto